magaalada Buuhoodana waxaa maanta ka dhacay kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen isimada gobolka Cayn, Cuqaal, Culimaadudiin waxaana kulankani lagu taageerayay shirki ka qabsoomay magaalada Laascaanood ee kontonka dhaarmeyd lagu mariyay mulkiilaha Dahabshiil Maxamed Siciid Ducaale oo ku dhaartay inuusan wax luga ku lahayn dilkii Allah u naxariistay marxuumad Saade Cali Warsame. shirkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa isimada kala Suldaan Siciid Cismaan Cali, Garaad Cabdirasaaq Garaato Faduraan, Suldaan Cali Sheekh Axmed iyo ehelada marxuumadda oo Buuhood la soo gaaray. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay Ibraahim Cali Warsame oo ka warbixiyay kulankii dhexmaray ehelka Saade Cali Warsame iyo beesha Sanbuur ee Dahabshiil ee ka dhacay magaalada Laascaanood. hawshaas aanu anagu Laascaanood u tagnay aanu ka kulanay nimanka Sanbuur aanu ka kulanay ninka Dahabshiil markii horena mabda ayagu ahaa in aanu hawshaan nagu dabada dheeraatay anaga isku kaaga dhufatay gudaha iyaga isku dhufatay baan u tagnay markii hore Laascaanood anigoo Ibraahim Rashiid Cali Warsame hawsha wixii aan ka qaatay odayaashii ka qaateen islaamku ka qaadatay jifidii ka qaatay bay anaga markii hore noogu dhanta reerka Maxamed Siciid Ducaale oo ku magac dheer Dahabshiil waxa aanu imika daba sidno aanu dabagal oo hadii la kuurayo niyadayada ama qulubtayada bedelayo aanu daba sidna ma jiro wixii kale ay maanta dawayno furantahay wadamadii kale loogu sheegay Saade Cali Warsame inaan u saarfacno waa noo furantahay. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah cuqaasha gobolka Cayn oo sheegay inay ku qanceen dhaartii uu maray Xaaji Maxamed Siciid Ducaale. ilaahayna waa sheegay quraankiisa ku sheegay aakhiro waxa uu la kulmayo ninka fidmo walaha beenta wala sheegay islaamkana inuu tuugaalay oo ilaahay u jeeyay ku qanca xaq buu leeyahay idinna waa soo qanacleen annana waa idin la qanacnay. ugu dambeyntii waxaa hadalka soo gabagabeeyay Suldaan Siciid Cismaan Cali. shirku waa salaaman yahay bulshada weyn ay isu timid isimadii iyo cuqaashii iyo culimadii iyo waxgaradkii ah ee reer Buuhoodle khayr ilaahay haynisu abaartana Allah idinka jabiyo colaadahana Allah idinka jabiyo caaqibana Allah idinku taliyo mahad ilaahay weeye arrinta imika saaka halka aynu ku hayno ee Laascaanood ku dhamaatay shaydaan iyo dad xun yaa dadkayagii si xun u geliyay adduunyaduna waa ogta ilaahay ba xisaabta rabbi bay noo tahay xisaabta rabbi maskaxdii dadka yaga yaa si xun dad u geliyay macallin bay noo noqdeen waan iska hubsan weyne ilaahay baa noo dhaxeeya ilaahayow ninka rabbigadow magaciisa ma aqaan anigu yee waan maqlayaan ilaahayow ninka isku kaaya dhuftay dadka islaamka ah ee dhexdayada wuxuu kaga shaqeeyay rabbigadow xisaabtiisa maanu saamixin maalinta qiyaamaha ilaahayow waxa uu mutaystay in la isku dhintuu damcay in dad islaami isqaanabuu damcay in dad islaami isxantuu damcay in dad islaami isdiluu damcay ninbaa waxaa na soo geliyey ninkaas rabbiga weyn baa noo dhaxeeya rabbiga weyn baa noo dhaxeeya waxaanu leenahay bulshada maanta reer Buuhoodle ama beesha dhulbahante Sool iyo Sanaag iyo Cayn ama dadka islaamkaaba walaaladaya ah dad badan baa internetada wuxuu ku arkay waxa ninkaas qorayo waxa uu sheegayo dad badan oo dhalinyarina waa naga raacay dad badan oo dhalinyaro si xun wax u sheegaya dad badan oo cabsida rabbi ku jirin yaa si xun iyana turjuma u sameeyay waa la isku kaaya dhuftay reerka ilaahay waxaan ugu mahadnaqayaa ilaaha maanta maxkamadda weyn islaamiga ah beeshii dhulbahante caasimadiisii inta ninkii waxa lagu sameeyay beeramuurka ah intuu soo raray reerkiisii oo soo guuray uu Laascaanood soo dhex fadhiistay oo sharciga maxamediyada gogol lagu dhigay oo sharciga maxamediyada
lagu garqaaday oo sharciga maxamediyada lagu kala baxay ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa arrintaa mahadda ilaahay baa iskale isagana waxaan ugu ducaynaynaa ninka wax loo sheeganaya gurigayga igu kaalada odhan jiray ninka wax loo sheegtay ee beenabuurka lagu sameeyay ee maanta intuu isagu gogoshii qaaday xeradii reerku umucdiisa ahayd ee caasimadiisa ahayd uu dhigay oo yidhi halkaasaan joogaa walaalayaal wax igu yeesha khayr ilaahay siiyo maxamed siciid oo khayr ilaahay ku siiyo dambi dhaafna allah ku siiyo shaydaanka inaga dhex shaqeeyana belaha la tagto cafina allah ina siiyo saada cali beesheedii reerkeedii waxgaradkeedii waa kii halkaas yimi wakaas wuu fadhiyaa intaas adeerkeed iyo abtigeed iyo inaabtigeed wada weeye waxa dhulka fadhiya aad aragtaa waxaanu ku qanacsanahay halkaa wixii ka dhacay markii horena ilaahay dad badan baan u warrana waxaan ninkaa hawiye si xun buu nooga dhex shaqaynayaa mar quraan markaan siciidahay wallaahi billaahi tallaahi baan ku dhaartay amba waa dhaartay inuu ninkaasi doonayo inuu naga faa'iidaysto waa garanayay aan tolkayna u sheegay tolkayna waka hareeraha iga fadhiya saasaan ugu sheegay cid walba oo reer buu hodla iyo cid kastoo magaca dhulbahantaa oo iimaan ku jiro ninkaasi inuu doonayo inuu naga dhex faa'iidaysto yaa inay xaajadiisu tahay baan ognahay waxaanu leenahay ilaahay waxaanu ka baryaynaa beeshii ay ka dhalatay iyo qoyskii ay ka dhalatay saada cali warsame khayr ilaahay ha siiyo ilaahay waxaan uga baryayaa inuu bedel khayr qaba ilaahay siiyo boos qaaliya in ilaahay siiyo iimaan qaaliya in ilaahay siiyo mar hadday sharciga maxamediyada ku fadhiisteen oo ku soo xaajo qaateen oo ku soo qanceen waxaan ugu ducaynayaa wax weyn in ilaahay ugu bedela annana waa ku qanacsannahay wataa wax allaale wixii halkaa waxgarad ahaa reer buuhoodle dee ma odhan karo buuhoodle aqal ma qaadee waxa aad aragtaan garaadadii waa ku ah ismadii suldaamadii garaad cabdisaaq culimadii waaweyneed mushaakiintii culimadii wax waliba waa fadhiyaan waa ku qanacnay awal leh in fidmana laga dhex shaqaynaya ay tahay anigu siciid ahaan yaan rumaysnaa imikana waa ku qanacnay xaajadaa wixii dambe nala soo qaada iyo wixii wadwada ee kale ee nagu soo celiya arrintaa masiiba ilaahay ha u keeno masiiba inuu ku dhacday wixii nagu soo celiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu